haddaba wadankii ayaa khasaaraha ugu badani soo gaadhay tan iyo markii uu bilaabmay dagaalka u dhexeeya Iiraan iyo Mareykanku. Qiyaastada Mareykanka kaalintee ayaa kaga jira wadamada khasaaraha ugu badani ka soo gaadhay ku soo qor commentiga. Lambarka shanaad waxa ku jira Imaaraadka. Dalkani si toos ah ugama qayb qaadan dagaalkan, balse Iiraan ayaa dul marisay diyaarado aan duuliye lahayn kuna dhoofatay gantaalo sababtoo ah joogitaanka xooggan ee Mareykanka ee halkaas. Imaaraadku waxa uu bilowgii lumiyay hanti u dhiganta qiyaastii 9 ilaa 10 bilyan oo dollar. Haddana waxa ay wajahayaan khasaare maalinle ah oo gaadhaya 200 ilaa 300 milyan oo dollar sababtoo ah duulimaadyada oo yaraaday, dhoofinta saliidda oo hoos u dhacday iyo ganacsiga wax xadidan. Lambarka afraad waxa galay Qatar oo ah dhoofiyaha ugu weyn ee LNG-ga adduunka. maalmihii hore Qatar waxa ay lumisay qiyaastii 12 ilaa 15 bilyan oo dollar oo kamid ah hantideeda ugu qaalisan sida goobaha gaaska ee waqooyiga dalka, iyadoo sidoo kale luminaysa 100 ilaa 200 milyan oo dollar maalintii, taas oo ka dhalatay ku tiirsanaanta ay ku leedahay marinada badda ee ganacsiga ee LNG-ga. dalka saddexaad waa Israa'iil, kaas oo la kulmay khasaare toos ah iyo mid dadban oo ku dhacay hantida muhiimka ah iyo saldhigyada military, kaabayaasha magaalooyinka iyo xarumaha dhaqaalaha. wadarta khasaaraha waxa lagu qiyaasaa 25 ilaa 40 bilyan oo dollar, iyadoo khasaaraha maalinlaha ah uu u dhaxeeyo 400 ilaa 700 milyan oo dollar, taas oo ka dhalatay ganacsiga oo yaraaday, dalxiiska oo istaagay, iyo kharashaadka militariga ee joogtada ah. dalka labaad waxa ku jira Mareykanka. inkastoo Mareykanku uusan burbur ka soo gaadhin gudaha dalkiisa, haddana waxa uu si weyn u khasaarayaa sababtoo ah isticmaalka qalabka militari ee aadka qaaliga u ah. wadarta kharashaadka dagaalka ayaa dhaafay 200 ilaa 300 bilyan oo dollar, halka howlgallada socda ay gubayaan qiyaastii 600 ilaa 800 milyan oo dollar maalintii, taas oo ka dhigaysa Mareykanka mid ka mid ah kuwa ugu khasaaraha badan dhinaca dhaqaalaha. ugu dambeyntii kaalinta koowaad waxa galaya Iiraan oo ah dalka la kulmay khasaaraha ugu ballaaran. waxa soo gaadhay burbur ku dhacay saldhigyada militari, nidaamyada gantaalada, aagga warshadaha iyo kaabayaasha saliidda. wadarta khasaaraha waxa lagu qiyaasay 300 ilaa 400 bilyan oo dollar, halka khasaaraha maalinlaha uu u dhaxeeyo 700 milyan ilaa 1 bilyan oo dollar. mar habta inaad baratid xirfadaha online-ka laga shaqeysto income iyo dhaqaale aad ka samaysid online-ka. haddii aad u baahan tahay inaad barato xirfadaha AI-da, freelancing, affiliate marketing, cryptocurrency iyo digital products sida loo sameeyo online-kana loogu iibiyo, iyo xirfadda e-commerce-ga, waxaan ku haynaa e-books si tafatiran kuugu sharxaya kuna baraya kuna siinaya siraha xirfadahaas online-ka loogaga shaqeysto. kaliya WhatsApp-ka iga soo weydii buugaagtaas, halkaas ayaana kuugu soo diri doonaa. igala soo hadal nambarka WhatsApp-ka aan dhigi doono commentiga.